Asalaamu calaykum daawadayaal. Ku soo dhawaada wax kasta TV. Waxaa idin la hadlaya Farseef oo horeen ku saliya nabigeena Maxamed calayhi salaatu wassalaam. Maanta waxaa ka hadlaynaa qiso jacayl tii ugu weyneed. Qiso ay dadka badanaa ay ku tusaaleystaan markay rabaan inay jacaylkooda caddeeyaan. Waxaad ku maqasheen heesooyinka, gabayada iyo wixii la midka ah. Wax kale kama hadlayo waa sheekada caanka ah ee Qays iyo Layla. Waxaa ka hadlaynaa qisadaas waana soo koobi doonaa si aadan weliya u maqlin. Marka hadaad janaalka ku cusub tahay subscribe noo dheh, haddii muuqaalkan ku cajabina like noo saar. Saa u wada ognahay, Qays wuxuu maray 4 marxaladood ama 4 heer. Heerka koowaad wuxuu ahaa dheelka iyo baashaalka. Heerka labaad wuxuu ahaa cishqiga iyo jacaylka. Heerka saddexaad wuxuu ahaa rafaadka iyo saxariirka. Heerka afraadna wuxuu ahaa waali. Ninka runo u waashtay jinool bilaash ma loo dhihin, jinoolkii Layla ayuu caan ku yahay. Runo u waashtay. Heerka koowaad oo ah dheelka iyo baashaalka. Qays iyo Layla waxay ahaayeen ilmo adeer, waxayna isla ilaalin jireen eriga. Eriga ayay subaxdii raaci jireen oo wayna isla dheeli jireen maalinkii oo dhan way isla joogi jireen. markay sanadada badan ay gudbeen ee labadoodu weynaadeen, Layla waxay bilaawday in ay isla dawoosho oo xijaab ay qaadato ayna ka fogaato Qays. Marxaladan halkan waxaa ka bilaabanaya heerka labaad oo ah jacaylka iyo cishqiga. Saa u wada ognahay, kala fogaanshaha wuxuu qalbiga ku dhalinaa jacayl. Qof ka heshay hadduu ka fogaado jacaylku wuu sii kordhaya. Marka Qays arrintii ku dhacday wuu jeclaaday. Markuu Qays u adkaysan waayay jacaylka uu u qabo Layla, wuxuu tiriyay labadan bayt ama labadan shicir: عشقت ليلى وهي غر صغيرة ولم يبدو للأطراب من ثديها حجم صغيرين نرى البام فيا ليت أننا لم نكبر ولم تكبر اللحم. wuxuu ula jeedaa Layla waxaan jeclaaday anagoo yar, labadeena waxaa ilaalin jirnay eriga. Shalaatadeedii maxaa u weynaanay oo u yaraan waanay anaga iyo eriga. Waana inaan ku guursadaa oo meherkaada aan soo shaqeeyo. Marka Qays wuxuu aaday magaalo kale si uu u soo shaqeysto. Xataa heer wuxuu gaaray oo shicirkiisa uu gato, qasiidooyin inoo qoro, shicir inoo qoro oo gato. Markuu lacag ku filan soo helay ayuu ku soo laabtay tuuladii ay degnaayeen. Nasiib daro waxaa ka soo hormaray gabayadii uu tiriyay. Carabtana waxaa caan u ahayd ama dabeecad u ahayd haddii la ogaado laba isjecel in labadooda la kala fogeynayo ee marnaba is guursanaynin. Haddii uu wiilka ama gabadha wax kasta ha dhacaan adi. Marka Qays dhibkaasaa qabsaday, waxaa ka soo hormareen shiciradan oo ah: أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منها يلاقي خيالي وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. wuxuu leeyahay waxaan tiriyaa haweenba haweenka ka dambeeyo, waxaana noolaa zaman aan tiri jirin maalmaha iyo waqtigaas uga hadlaya wuxuu la joogi jiray Layla. Markay isla joogeen maalmaha iyo habeenada buu tiri jiray, laakiin markuu ka soo dheeraaday oo shaqo iyo waxaas uu soo raadsaday wuxuu bilaabay inuu tiriyo habeenada. wuxuu dhahay habeenkii waa isla daboolaa anigoo hurdo ihaanin, lacala inaan riyadu ku arko kale, riyada le inaan isku aragno. Ilaahayna wuu awoodaa inuu isku keeno labada isjecel. intaasoo dhahay labadaas gabay tuulada ugu soo hormartay. Halkan waxaa ka bilaabanaya heerka saddexaad ee sheekada. Heerka saddexaad oo ah dhibka iyo rafaadka. Layla aabaheeda wuu diiday inuu gabadhiisa u guuriyo Qays. Marka Qays wuxuu soo arooriyay adeeradiisa iyo qolo dhan ayuu u keenay aabaha Layla si loo guuriyo. wax walbo dhaco, si walbo la yeelo, Layla aabaheeda wuu diiday inuu u guuriyo gabadhiisa Qays. Marka Qays wuxuu tiriyay labadan bayt:
قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالأشواق مني والغرام قضى لي. waxay macnaheedu tahay iyada jaceylkeeda iyo iyada wanaageeda qof kale oo ilaahay u qadaray, anna wuxuu ii qadaray rafaadkeeda iyo xiisaheeda iyo jaceylkeeda. marka labadaas bayd Leyla aabaheeda way dhibtay, wuxuuna dhahay laga bilaabo beri qofkii kusoo doontaa kugu dara, qof kale oo qaysm kugu dara, laakiin qofkii kusoo doonta beri isbiridan ugu guurina. ninaa lagu qasbay, Leyla waa la aroosay. halkan waxaa ka bilaabanayo qaybta afraad oo ah waalidi. markii la aroosay Leyla oo la watay oo ninkeeda uu watay oo tuulada Taa'if la dhahayo loo guursadaa loo watay, marka asoo jinoole oo waashtay wuxuu shuminayay darbiyada. waxa uu imaaday ilma adeeradiisa, waxayna dhaheen qofiyo oo darbi shuminaya ma jiro. wuxuu dhahay amaru cala diyaari Leyla uqabilu dha ljidaara wadha ljidaara wamaa xubu diyaar shaqafna qalbii walaakin xubu man sakana diyaara. waxaan dhex marayaa guriyada ama guryada, waxaan shuminayaa darbiyada ma jeclaanin oo dhahay, laakiin darbiyada qofkii dhex deganaa ayaa jeclaa, qalbigayga uu jeclaaday. markii heerkaas inuu marayo ilma adeeradiis ay arkeen, waxay ku dhaheen aabihiisa wiilkan saamul uu fiirsan karo ee xajka geey inuu ilaahay hanuuniyo oo qalbigiisa u dejiyo ayaa laga yaabaa. marka aabihiisa wuxuu u waday Maka mise u soo xajiyaan xajka u waday. markii Maka loo dhawaayo ee dadka talbiya ma sameynaayo labbayk allaahumma labbayk malaayaan ahaa, ninkaani wuxuu dhahay ذكرتك والحجيج لهم ضجيج بمكة والقلوب لها وجيب. فقلت ونحن في بلد حرام به والله أخلصت القلوب أتوب إليك يا رحمن مما عملت فقد تظاهرت الذنوب. وأما من هوى ليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب. الله مسكين كان وحو dhahay dhageysta bal waxaa ku soo xasuustay ayagoo xujayda ay talbiyeynayaan. waxaana dhahay anoo joogo meel xaraam ah, ilaahay waa ku toobad keenaa, dambiyadeeda oo dhan dunuubteeda way badatay, laakiin jaceylkayga iyo ziyaaradeeda Leyla ma ka toobad keenaay. oo leeyahay ninkan dhibka meeshuu ka gaaray arag meeshuu maray. marka aabihiisa wuxuu dhahay kacbada ag istaag, daahyadeeda qabso oo ilaahay bari, ilaahay inuu qalbiga waxa ka saaro. ninka wuxuu qabsaday daahyadii kacbada, wuxuuna dhahay yaa rabbi laa taslimannii xubbaha abadan warxam illaahumma cabdan qaala aamiina. ilaahay oo jaceylkeeda ha iga qaadin, u naxariiso qofkii dhahana aamiin. saasuu leeyahay. ninkan oo ku hashta waa ugu dhegtay gabartan, waa laga saari waaya qalbigiisa, wax walbaa loo sameeyey. heerkaasoo mara aabihiisa wuu ka quustay, ninka inuu xal lahayn wuu arkay. intii uu soo celiyey marka tuuladoodii ay usoo laabteen. tuuladii ninkaa xasuus badanay ku leedahay, mogtaa waa iska baxay, duurka waa iska galay, wuxuu saaxiib la noqday dugaagta iyo sagaarooyinka iyo waxaasoo saaxiibo la noqday, bahalladoo saaxiibo la noqday, duurkiisu iskaagi jiray. soo duurka uu jiray maalin maalmaha ka mid ah wuxuu soo u socday, wuxuu tagay Taa'if. tuulada Taa'if yaa deganaa Leyla iyo ninkeeda deganaayo. marka wuxuu soo ag fadhiistay niman oo dab u daaran yahay oo iska ag fadhiyo, derbiga dabka ku wareegsan oo iska sheekeysanayo oo u imaaday oo soo ag fadhiistay. marka wuxuu aqoonsaday Leyla ninkii qabay ayaa la fadhiyay, ninkii oo aqoonsaday markaasuu labadan beyd ku yiri بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها وهل رفت عليك قرون ليلى رفيف العقوان على نداها. wuxuu leeyahay ilaahay baa kugu weydiiyey Leyla afkeeda ma dhunkatay waaga intuu baryin ka hor, timaheedana korkaada ma taabteen. saasuu yiri
ninkii yaa u jawaabay oo wuxuu dhahay ama taa ilaahay dartiisa ii weydiisay ilaahay ugu dhaarisay haa waa sameeyey oo saas waa yeelay haa. ninkii dabkii oo gacmaha gashtay dabkii oo gacmaha gashtay 2 dhimbilo waaweyn oo soo qabsaday ma deenin ilaa oo ka soo xaaday. markuu soo kacay oo suuxitaankiisa oo soo kacay oo wuxuu arkay dhar asoo u hogsan yahay dharkii Layla ayuu u hogiyey ninkii naxariista qalbigiisa gashay Layla ninkeedii oona baxay adduunka dhan oo shicir ka dhigay ninkan shicir la soo tirinayo qofkii xiisa uu ku hay qadkoo ka akhrin karaa caadi asoo fasiran waa la helaa. marka haddii aad muuqaalkan ka heshay like noo saar qiso tan ka fiicanna inay jirto mobile ah Romeo and Juliet iyo waxaas sheeko qayaali waa xitaa run ma ahan marka waa mahadsantihiin nabaday.